ujeedada safarka iyaga waa la sheegay waxa ugu mudani waxa weeye diiwaangelinta dadku inuu isdiiwaangeliyo waa xuquuq aasaasi ah oo dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu qofka xuquuq u siiyay si tiradiisa loo ogaado tirada dadka halka ku nool waa imisa oo noqon doonto mustaqbalka in qorshaha qaranka lagu saleeyo haday tahay horumarin imise qof baa degmada ku nool wax loo qabtaa ma aha codayn oo kaliya marka qofku inuu isu diiwaangeliyo oo kaarkiisa muwaadinkana qaato kiisa diiwaangelinta qaata waxa weeye waa xuquuq aasaasi ah oo xaq u siiyay dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mar labaadka waxa weeye waa xuquuq dastuuri oo qofku inuu xuquuqdiisa ku baadi doono codkiisa uu codeeyo oo uu doorto hoggaanka qaranka iyo golayaasha deegaanka baarlamaanka xisbiyada wax oo dhan waa xuquuqyadana uu qaranku siiyay dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland marka waxaan u soconay qofkii kaar ka lumay iyo kii daadii gaaray maxaan ku raahdaa qaangaarka inuu codeeyo iyo kii warqad hore u haystay u baahnaa in kaar la falasiiyo waxa soo dhaminay noqdaan in looga faa'iideysto fursadan oo mar walba soo marta markastoo doorasho la qabanay soo maraysa marka waxaan idinku boorinaynaa oo deegaanada kala dhawaan kala simanahay oo idinku dhiiri gelinaynaa in aydan fursadda dayicina meel kastoo joogto guuragal ugu kaalay maxaan ku raahdaa u soo lugee masaafo kastoo joogto in la isku wacyi geliyo dadku inay isdiiwaan geliyaan ta doorashada waa isugu iman doonaayo iyada talaynu ka geli doonaa insha Allah laakiin horta waxa weeye doorashada waxa ka horeeya waxaad ku codayn lahayd inaad qaadato biidin Ilaahi tacaala talabaadna wixii baahi halkan ka sheegteen waa run wixii la qaban karay suurtagal ah haday tahay ambulance-ka ka hawlgalkiisa sidii loo kicin lahaa oo barigii hore aanu keenay waxay ahayd degmadu inay isku tashato dhaqaale yar loo sameeyo gabadha uu mushuuq qaadayo iyo tuulo cararayo qarash yar loo sameeyo degmadu ay intay urursato ay ilaashataabay ahayd darawalkaana mushaarkiisa bixin jiray markan wasiirka duulista ahaa waan xusuustaa laakiin markii dambe waxaan kula taliyay dadku si aanu ku tiirsano ugu noqon nin xil haya baritu ka tagaya kuwa joogana baritay ka tagaya ambulance-kiina iyo MC ku tiirsano kuma noqon kartaan waxay ahayd qorshe loo sameeyo taana waxaanu sameeynaa waxa ka mas'uulay wasaaradda caafimaadka oo waanu ku khasbannahay inaanu idinka hawlgallo sidii loo kicin laa ee u shaqayn laa isagiyo waxyaalaha kale idinka qabyadayba marka waxaan ku soo ururinayaa biidin Ilaahi tacaala xukuumadduna runtii waan aaminsanahay waanan hubaa wax badan bay qabatay oo halkan oo qolo maahay dalka oo dhan ka qabatay laakiin marka la eego dhaqaalaha yareena soo galaa baahideedana la eego dalka oo dhan oo tuulo wal iyo degmo wal iyo gobol waliba uu doonayo in uu caafimaad iyo waxbarasho iyo wado iyo daryeel uu helo waxaan isleeyahay hagrasha ma jirtee dhaqaalaheena yar kolba sidii wax loogu qaban karuunba loogu qabtaayo taana wixii idinka qabyaan ka hawlgallo mas'uuliyad baa naga saaran waa naga idinka wakiila marka waxaan ku soo ururin lahaa idinkuna dhexdiina dadaala annaguna waa idin dadaalaynaa xukuumadduna waa idin maqan tahay doorashadana aan u diyaar garowno si ay u soo kala horeeyaan kaarkana aan qaadano. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.